بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. walaalayaal, ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay: afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun. wardadow, ma waxaad simaysaan kii mu'minka ahaa, muslimka ahaa, ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsanayay, salaadaha ilaalinayay, xaaraanta ka fogaaday, iyo kii mujrimka ahaa, faasiqa ahaa, dembiilaha ahaa, ilaahay aan oqoon, rabbi subxaanahu wa tacaala aan u sujuudin, nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aan qudwo iyo uswo aan ka dhigan. ma labadaasaa sinnaan? ma labadaasaa intay dhintaan aan la soo saarayn, kanna janno aan la geeninayn, kanna naar aan la gelinayn? cadaalad ma aha buu ilaahay leeyahay. cadaaladda ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida in uu khalqigan uu soo saarayo, kii wanaagsanaada in wanaag ilaahay u siinayo, kii faasiqa ahaa ama mujrimka ahaa ama kaafirka ahaana ilaahay uu xumaan siinayo. ayuha alikhwatu alkiraam, darsigu waa inoo soo socday, laakiin masjid kale aan ku soo qaadannay. waxaan ka soo hadalnay qofka muslimkii ama mu'minkii inuu baasaboor u soo qaato, camal saalixa inuu soo qaato, uu qabrigii kaga soo baxay, uu maxsharkii iyo mowqifkii aakhiro ku soo tallaabay, midigta uu kitaabkiisa ku soo qaatay, siraadkii inuu ka soo tallaabay, qandaradii inuu iyadana uu ka gudbay. ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaasi khatarta ah waxa uu leeyahay: dada waxaad kaga badbaadaysaan waa camal saalix, iimaan iyo camal saalixa umaad kaga badbaadaysaan. waxaan la soconnaa dadkii mu'miniinta ah, dadkii ilaahay ka cabsanayay rabbi subxaanahu wa tacaala baan la soconnaa, jannadaan la gelaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas marka ay siraadka ay ka soo gudbaan, ay qandarada ka soo dhaafaan, waxay u imanayaan geed weyn. albaabka jannada agtiisa ayuu ku yaalaa. geedkaasi waxay culimmadu yidhaahdeen 2 il ayaa ka burqanaya oo biyo ah. mid bay ka cabbayaan, qurux iyo wanaag buu ilaahay u beerinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala. ka labaadna way ku weysaysanayaan, timahooga aada ugu qurux badnaanaya. waa wafdi ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa la wadaa jannada intayna gelin baa la soo hagaajinayaa, la soo qurxinayaa. ilaahay waxa uu leeyahay: wasiiqa aladiina اtaqow rabbahum ila aljannati zumara. kuwii alle ka cabsaday xagga iyo jannada ayaa loo kaxaynayaa, iyaga oo jamaacad u socda, mu'miniintii oo jamaacad u socda. sidaasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala. ambiyaadii oo gaar u socota, shuhadaadii, saalixiintii, jamaaca loo socdaa. waa la soo dhowaynayaa. waa wafdigii ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala. maxaad u malayn? ilaahay waxa uu leeyahay: yowma naxshuru almuttaqiina ila alraxmaani wafda. maalinkaa waxaan soo xashrinaynaa dadkii muttaqiinta ahaa ee alle ka cabsanayay. raxmaan baa loo soo xashrinayaa iyaga oo wafdiya. ibnu cabbaas waxa uu leeyahay: wallaahi waxay imanayaan iyaga oo wax la soo fuushiiyey, oo nimcaysan, oo barakaysan, oo qurux badan
ayaa albaabkii jannada isa soo taagayaan. albaabkii jannada waa jannooyinkii rabbi inoo sheegi jiray subxaanahu wa tacaala. waa 8 albaab oo janno ah, waa isa soo taagayaan xagga. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, fi ljannati 8 abwaab. jannadu waxay leedahay 8 albaab, waa darajaat, waa iskor yaalaan. waxaa ka mida buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam baab la yidhaahdo yusamaa alrayaan la yidhaahdo, laa yadkhuluhu ila asaa'imuun. dadka saa'imiinta umaa ka gala buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa la yimid, albaabkii baa waa la hor joogaa. albaabadu jannadu way waawen yihiin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay labada fardadood ee albaabka qaarkood inay isku jiraan 40 caaman, 40 sano in loo socday isku jiraan. qaar kale nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa loo socdaa 70 caaman, 70 sano in loo socdo ayay isku jiraan. laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, walaya'tiyanna calayhi yowmun wainahu lakadiib. waxaa imani maalin albaabadaasi ay buuq yihiin oo zixaam u jiro oo la buuxo ayaa la iman buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. mu'miniintii xaggaasa isa soo taageen, kuwii alla ka cabsanayay oo dhan baa xaggaa isa soo taagay. alla wanaagsanaa meeshaas. nebigii baad arkaysaa, abubakar sadiiq baad arkaysaa, cumar baad arkaysaa. waa kaasaa lagu leeyahay nebigii nebi ibraahim, nebi muuse, ambiyaadii oo dhan, khalqigii khayru khalqillaah oo dhan baa meesha tuulan. maxaad u malay mowqifkaas? maxaa ka wanaagsan? waa urtii jannada. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waina riixahaa layuujadu min masiirati 70 caaman. uduga jannada, carafta jannada, udgoonka jannada waxaa laga helaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam in 70 sano loo socdo ayay urteedu kaa soo gaadhaysaa. mu'miniintii way hortaagan yihiin, jannadii baa u urays, wanaaggii bay arkayaan. nebi moxamed baa imanaya sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi aatii waan imani baaba aljanna faastaftix, hallayga furaan oran, waan garaaci. fayaquulu alkhaasin man yaa lay oran, waa ayo ka garaacaya. faaquulu muxamed, waa nebi moxamed baan oran. fayaquulu malagii wuxuu orani, bika umirtu an laa aftaxa liaxadin qablak. adiga umaa lay amray inaan kaa horfuro, adaa ugu horgelaya jannada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu yidhi, naxnu alaakhiruun alwaluuna yowma alqiyaama. ummadaha annakaa ugu dambayna, annakaana qiyaamaha ugu horgelayna jannada. wanaxnu walu man yadkhulu ljanna, rawaahu muslim. mu'miniintii way yimaadeen, albaabadii jannada ayaa la furay. buuq baa ka jira, waa la xaadirinayaa. mid qaar baa albaabba laga xaadirinayaa. saa'imiintii meel baa looga yeedhayaa, mujaahidiintii meel baa looga yeedhayaa. abubakar baa yidhi, nebi allow, qof 8 albaab oo jannada laga xaadirinayo oo looga yeedhayaa ma jira. nebigu wuxuu yidhi, waxaan rajaynayaa inaad adu ka mid noqotid abubakarow radia allahu canh. xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khasanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin. malaa'igtii baa soo dhowaynaysa, malaa'igtii baa ku odhanaysa waad wanaagsanaateen, liibaan baa inii sugan, khayr badan baa inii sugan. salaamun calaykum, salaamun calaykum, soo dhowaada. tibtum waad wanaagsanaateen, fadkhuluuhaa gala jannada, khaalidiina ininka oo ku waaraya. malaa'igtii baa ka hor timid. watatalaqaahum almalaa'ikatu haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun. waa kan maalinkii nila yaboohaye, maalinkii la lahaa jannaad gelaysaan, waa kan maanta aad aragteen baa la leeyahay. soo dhowaada, nabadgelyaa korkiina ah. salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqba addaar. sidaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. malaa'igtaa ku odhanaysa, waad sabirteen, xaaraantii baad ka sabirteen, khayrkii baad ku sabirteen, ku soo dhowaada wanaag iyo janno iyo liibaan iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. ku
kuwa ugu horeeya jannada gelaya han eegno kooxda ugu horeys ee jannada gelaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa ina awala zumratin yadkhuluuna aljanna calaa suurati alqamar laylata albadr nebigu wuxuu yidhi kooxda ugu horaysa ee jannada gelays wejiyaashooda waxaad moodaa dayaxa iftiinkiisa oo kale habeenka 15aadka waxaa ku xiga kuwa xidiga samada ugu iftiinka badan sidaasoo kale u iftiimaya ayay jannada gelayaan waa la soo dhawaynayaa malaa'ig baa abbaabada hor joogta soo dhowaada bay leeyihiin waad shaqaysateen waad sabirteen janno iyo wanaag ku soo dhowaada ayuha alakhu lmuslim bal meeshaa wanaaggeega daawo waa jannadii alla diyaariyey madaxweyne ma diyaarin boqor ma diyaarin wasiir ma diyaarin ilaahay baa diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay samooyinkan abuuray dhulkan abuuray insaankan abuuray rabbigaasaa diyaariyey wuxuu alla diyaariyey maxaad u malaynay ayuha alakh ilaahay baa soo dhowaynaya soo dhowaadaa la leeyahay waxaa loo qalayaa meesha thawruljanna dibigii jannada ayaa loo qalayaa waxaa laga waraabinayaa cayn la yidhaahdo salsabiil ayaa laga waraabinayaa kacab baa la leeyahay soo dhowaadaa la leeyahay mu'miniintii jannaday gelayaan way nuurayaan way iftiimayaan way bishaaraysanayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ahlu jannuhu jannaday gelayaan iyaga oo jidhkooga antima ayn ku oolin gadhna aan lahayn aad u qurux badan cadcad buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam loo indhakuulay 33 jira ama 30 jira shabaaba sidaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu waxaa loo abuuray min jadiid sidii nebi aadan khalqigiisii oo kale ayay 60 baac ayuu dherarkoogu yahay balladhkooguna waa 7 baac weeyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yabuuluun ma kaadsayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaadi iyo waad kala hadheen ma xaarayaan khaakhata ma tufayaan candhuuf dambe ma jirto way nimcaysanayaan meesha way bishaaraysanayaan mid walba waa boqor meeshaas waxaa loo xidhay taaj ayaa loo wala xidhay jannadaa lagu soo dhowaynayaa talow yaa guriga itusi talow meeshii la iigu talagalay xaggee maxaan ku garanayaa nebigu waa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fawalladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay allaha ay gacantiisu ay ku jirto naftaydu ayaan ku dhaartay qofku wuu yaqaanaa la axaduhum bimaskanihi fi ljanna adallu bimanzilihi kaana fi ddunyaa qofku gurigiisa jannada wuxuu u yaqaanaa si ka wanaagsan gurigiisii adduunka uu yaqaanay isagaa raadsanaya gurigiisa wuu yaqaanaa gurigiisa waa kii ilaahay lahaa wayudkhiluhum aljanna carafahaa lahum ilaahay baa tusay subxaanahu wa tacaala jannadoodii bay doonanayaan xaggaasuu tegayaa mid walba waa janno waa meeshii alla diyaariyey subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin addoommadayda waa wanaagsan waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at il wax ayna arag walaa udunun samicat dheg wax ayna maqal baan u diyaariyey walaa khatara calaa qalbi bashar ina nebi aadam qalbigiisa wax aan ku soo dhicin ayaan u diyaariyey waxaa lagu leeyahay jannada waxaa ku jira canab baa ku jira biyaa ku jira waxaasaa ku jira magaca ume adduunka magacayaasha adduunka mid umay ka yihiin laakiin isku dhandhan ma aha isku midab ma aha allah diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey ama akhriya buu lahaa nebigu falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun nafna ma garanayso wuxuu alla u diyaariyey ee wanaaga ee indhaku qaboojisa ilaahay umaa garanaya subxaanahu wa tacaala jannadii bay soo galeen jannadii bay dhex socdaan jannada gebigaygu waa caddaan cadceed ma jirto dayax ma jiro waa iftiin ibnu cabbaas waxa uu yidhi
nebiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam khalaqa allahu aljannata baydaa ilaahay wuxuu abuuray jannada caddaan way caddahay jannadu wa axabu zayi ila allahi albayaad ilaahay agtiisana dharka waxaa loogu jecel yahay dharka cad sidaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam guryihii jannaday dhex socdaan waxay raadsanayaan mid walba gurigiisii buu tegayaa waa la soo dhowaynayaa abaa hurayra waxa uu yidhi nebiga ayaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebi allow nooga sheekee jannada maa binaa'uhaa dhismaheegu muxuu yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadu waxay ka dhisan tahay labinatun min fida wa labinatun min dahab jaajuur ka samaysan lacag jaajuur dahab ka samaysan taasay ka dhisan tahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagax iyo ciid iyo waxaasoo dhan waa lagu kala tegay waa dahabkii waa lacagtii noocyaashii ugu dambeeyey ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu jannadiisa ka dhisay dadka jannada gala kuma dhimanayaan laa tablaa hiyaabuh dharkoogu ma baaliyoobayaan shabaabnimadoodu ma gaboobayso nebigu wuxuu lahaa calayhi الsalaatu wasalaam jannataani min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa laba janno siday yihiin gebi waa dahab buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam xataa weelkoogu wa jannataani min fida aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa laba jannana waa lacag buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam wax walbi waa lacag rawaahu الbukhaari wاlmuslim qolalkii jannada ilaahay waxa uu leeyahay laakin aladiina اtaqow rabbahum lahum gurafun min fawqihaa gurafun mabniyatun tajrii min taxtiha alanhaar wacada allahu laa yukhlifu allahu almiicaad ilaahay wuxuu u diyaariyey kuwii alla ka cabsaday gurafku u diyaariyey qolal kale ay sii kor saaran yihiin hoostooda webiyaal ay yaacayaan wacda allahi laa yukhlifu allahu almiicaad ilaahay baa ugu ballan qaaday ballanta alla kama baxo faulaa'ika lahum jazaa'u dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun qololka qusuurta bangaalooyinkaas taasuu ilaahay le fiilalkaa ilaahay u diyaariyey ayay aamin ku yihiin ma cabsanayaan ma warwarayaan ilaahay baa ku soo dhowaynaya subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam meeshaasi dadku way kala tegayaan waa la kala sareeyaa adduunkanba mu'min baa jira ilaahay aad uga cabsanayey awaamirtiisa qaadanayey xumaanta iska ilaalinayey mid muslim oo kalaa jiray muslim ahaa dembi badnaa toobad keenayey labadaasii ma sinna way kala sareeyaan ilaahay cadaaladiisay ka mid tahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi min fawqihim waxay isku arkayaan buu nebigu yidhi kuwa qolalka degani kuwa kale waxay u arkayaan ee ka sareeya sida xiddiga samada ku fog oo kale ad u aragtaan sidaasoo kale u arkayaan wuu ka ajar badnaa wuu ka dadaal badnaa wuu ka cibaado badnaa wuu ka khayr badnaa wuxuu u arkayaa guryihiisa iyo khayrka ilaahay u diyaariyey sida xiddiga samada ku fog oo kale loo arko asxaabtu way yaabeen qaaluu yaa rasuula allah tilka manaazilu alanbiyaa laa yabluquhaa hayruhum nebi allow kuwa samada sidaa ugu fogaaday ee sidaa u dheeraaday ee guryaha wa wanaagsan alla u diyaariyey waa ambiyaadu maan u malaynaynaa bay yidhaahdeen nebi allow nebigu wuxuu yidhi bala waaladii nafsii biyadih rijaalun aamanuu biاllaah wasadaquu lmursaliin wallaahi ma aha buu nebigu yidhi ee waxa weeyaan rag ilaahay rumeeyey oo mursaliintiina rumeeyey ambiyaadii ilaahay rumeeyey oo dadaalay oo shaqaystay weeyaan nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi fi اljanna kamaa tarawna alkawkaba fii ufuqi الsamaa sidaasaa la isku arkayaa midba midku ka ajar badnaa ayuu ka guryo fog yahay waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina fi اljannati lagurafa yuraa duhuuruhaa min butuunihaa waxaa jira buu nebigu yidhi qolal baa jira aqalaa jira viilal baa jira qofka gudaha ku jira wuxuu arkayaa qofka dibadda jooga qofka dibadda joogana qofka gudaha ku jira ayuu arkayaa waa muraayad gebigiisu muraayadda adduunka ama aha
nin acraabiya sara kacay markaasaa wuxuu yidhi nebi allow liman hiya yaa rasuula allah guryaha ayaa leh nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam hiya liman ataaba alkalaam waxaa iska leh qofka hadalka hagaajiya wa atcama aلطacaam cuntadana qoodiya wa adaama الصiyaam soomkana daa'ima wa sallaa lilaahi biاlleyl habeenkiina ilaahay u tukada wanna'su niyaam markay dadku ay hurdaan rawaahu tirmidi waa guryihii jannada ilaahay baa diyaariyey ilaahay baa yidhi wamasaakinu طayiba waxaan diyaariyey guryo wanaagsan fii jannaati cadnin guryahaas viilashaa ilaahay uu diyaariyey bangaalooyin weyn oo alla diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala geedaa ku wareegsan webiyaal baa hoos yaacaya nimcad iyo khayr oo dhan baa ku sugan wacada allahu almu'miniina waalmu'minaat jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wamasaakina طayiba fii jannaati cadnin allaa diyaariyey nimcad oo dhan baa ku sugan meesha wanaag oo dhan baa ku sugan ciidda jannada ma eegna ciidda jannada waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam jannada markii la angalay habeenkii laylat اlisraa wاlmicraaj udkhiltu ljanna jannadaa la igeliyey faidaa fiiha janaabidu lu'lu waaba iyada oo ciiddeedu lu'lu u dhex yaalyaalo sidii dhagaxa lu'lu baa dhex yaala waa macdanta noocyaasha ugu qaalisan ee ugu wanaagsan weeyaan waidaa turaabuha almiski ciiddeeduna waxaad mooddaa buu nebigu yidhi waa miski waa cadarka nooca ugu udgoon weeyaan waa ciiddii jannada waa wanaaggii jannada nebigu waxa uu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ciidda jannada darmakatun baydaa waa daqiiq buu nebigu yidhi aad u cadcad miskun khaalis waa udgoon waa miski cadarka la yidhaahdo ciidda jannadu aad bay u cadcaddahay aad bay u qurux badan tahay waa daqiiq dhagax waaweyn iyo waxaasi lama socdaan sidaasuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam jannadaasi waa qaali meesha yari waa qaali rakhiis ma aha nebigu waa kii lahaa calayhi الsalaatu wasalaam alaa ina silcata allahi haaliya silcadda ilaahay iibinayo waa qaali dadow u shaqaysa sidaasuu lahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi mawdicu sawtin fi ljanna shaabuugga meel yar oo shaabuug la dhigo ama shaw meel yaroo la dhigo oo jannada ah ayaa ka khayr badan min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa ku jira in yaroo intaa leeg ayaa ka khayr badan adduunka iyo waxa ku jira oo dhan nebigu waxa kaloo riwaayo kale ahayd khayrun mima tatlucu calayhi الshamsu watagrib waxay cadceeddu u soo baxdo ay u dhacdo oo dhan meel yar oo shaabuug la dhigto oo jannada ka mida ayaa ka khayr badan buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam jannada ayaan dhex soconnaa dadkii mu'miniintii guryahoogii bay u socdaan khadam shaqaalihii u shaqaynayay ayaa arkay ninkii mu'minka ahaa oo guryihiisii u soo socda way yaacayaan xooriceyntii bay u sheegayaan odaygaagii baa yimid bishaarayso u soo bax soo dhowee albaabkii bay u hor joogtaa way soo dhowaynaysaa soo dhowow bay leedahay waa gurigiisii waa haweenkiisii waa xuuraciintii allahu akbar maxaa ka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u guurinayaa xuuriciin kadalika wazawajnaahum bixuuriciin ilaahay wuu tilmaamay xuuriciinta quruxdooduu tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waxuuriciin kaamhaali lu'li'i almaknuun waxaad mooddaa buu ilaahay yidhi xuuraciinta aan u diyaarinay dadka mu'miniinta ah lu'lu ayaad mooddaa hilaaca iftiinka quruxda oo almaknuun la ilaaliyey cadceeddu ayna beddelin wax taabtayna uuna jirin ilaahay waxau aayad kale ku tilmaamay yaaquut iyo marjaan fiihinna qaasiraatu tarf lam yatmithunna insun qablahum walaa jaan jin iyo insi midna ma taaban buu ilaahay yidhi waa ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala waa abkaar fabiأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan kaannahunna waxaad mooddaa quruxdooda iyo siday u quruxsan yihiin iyo wanaagooga alyaaquutu waalmarjaan yaaquut
iyo marjaan baad moodaa garani mayno waa macdanta noocyaasha ugu fiican weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay inay isku wada da' yihiin oo ayna maaragtay xooriciin mid ay ku hagaagtay da' islaan da' mid kale oo gabadh ku hagaagtay ma jiro gebi waxaa xooriciin la yidhaahdo oo dhani waa isku wala da' waa isku wala qurux wakawaaciba atraaba ilaahay waxa uu leeyahay waa wala gashaantimo naas adag oo isku wala da' saasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wacindahum qaasiraatu tarficiin ma sii eegayso odag kale nin kale ma sii raadinayso odagayga umay daawanaysaa adiga umaa ila bay leedahay anna adiga umaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayey walahum fiiha aswaajun mutahhara waxay ku leeyihiin jannada dumar la daahir yeelay dhiig male ma dhidido maaragtay basashii kama urayso waa dumar ilaahay uu diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala quruxdooda wanaagooga ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuu sheegay nebiguna waa inoo bayaaniyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yidhi walikulli waaxidin minhumaa zawjataan mid walbi wuxuu leeyahay laba zawjuu leeyahay xooriciina dumarkiisii adduunka mu'minaadkii waa la raaciyey wa alxaqnaa bihim waa kii ilaahay lahaa dumarkoogii baan raacinay oo jannada la galay kuwii mu'minaadka ahaa waxaana loo guurinayaa mid walba laba xooriciina ka shahiidka akthar min 70 in ka badan ayaa isaga lagu daraya nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa la arkaa iyada oo 70 xullo oo xariira xidhan ayaa waxaa la arkaa dhuuxa lugaheega ayaa xaggaa laga dhex arkaa quruxda iyo caddaanka waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walow anna imra'atan min ahli ljanna haweenkaa jannada ka mida midkood hadday adduunka ay soo eegto la adaa'at maa baynahumaa samada iyo dhulka inta u dhaxaysa ayay nuur buuxinaysaa wala mala'athu riixan udgoonna way buuxinaysaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walinasiifiha calaa ra'sihaa khayrun min addunya wamaa fiiha malkhabadda yare madaxa ay ku sidato ayaa ka khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunka iyo waxaa ku jira oo dhan waxaa ka khayr badan shalmadda yare madaxa ay ku sidataa ka khayr badan waa bikr innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ka dhignay bikr ina asxaaba aljannati alyawma fii shuglin faakihuun dadka ahlu jannuhu way mashquuliin nimcad iyo khayr bay ku mashquulsan yihiin hum waaswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun way reexaysanayaan barkimay ku tiirsan yihiin way mashquulsan yihiin oo nimcad bay ku jiraan cabdillaahi ibni mascuud iyo ibni cabbaas waxay leeyihiin radia allaahu canhuma waxay ku mashquulsan yihiin bikirka jebintiisay ku mashquulsan yihiin ibni cabbaas radia allaahu canhu waxa uu yidhi nebigaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam anafdii ilaa nisaa'ina nebi allow dumarka yaga maan u tegaynaa maan u galmoonaynaa nebigu wuxuu yidhi nacam haa sidaad dumarka adduunka aad ugu galmoonaysaan oo kale waaladii nafsu muxammadin biyadih ina alrajula layafdii fi lghadaati alwaaxida ninku wuxuu u tegayaa uu u galmoonayaa maalinkii quraata in ka badan 100 cadraa 100 gashaanti ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuu u galmoonayaa quwad baa la siiyey maad cabsan nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ahla aljanna dadka elu jannuhu idaa jaamacuu nisaa'ahum markay dumarkooga ay la jimaacaan u galmoodaan caaduu abkaar bikr bay dib ugu noqonaysa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yucطa alrajulu fi ljanna jannada waxaa ninka lagu siiyaa quwad miqdaar kada wa kada ayaa lagu siiyaa asxaabtii baa waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah wayatiiqu daalik miyuu karayaa inuu intaasoo dumara uu u galmoodo nebigu wuxuu yidhi nacam yucطaa quwat 100 nin quwadooda la siiyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ibni cabbaas waxa uu leeyahay jannada waxaa ku sugan xooriciin la yidhaahdo magaceega lucba low basaqat fi lbaxr badda haddii candhuuf ku tufto lacaduba maau lbaxri kullah badda biyaheegaoo dhan macaan bay isku beddelayaan maktuubun calaa naxriha
qoorteeda waxaa kaga qoran man axabba an yakuuna lahu mitli qofkii doonaya in anoo kale uu u sugnaado falyacmal bitaacati rabbii caza wajal ilaahay ha adeeco markuu adduunka ninka mu'minka ay haweenaydiisu dhibto ay yaro kadeedo tii xuuracaynta ahayd baa booda waxay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'di imra'atun zawjaha fi ddunya naag ma dhibto odagayga adduunka kuma dhibto ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin naagtii xuuracaynta ahayd baa adasha maxay ku tidhaahdaa laa tu'dii ha naga dhibin odayga qaatalaki illaah fa innamaa huwa dakhiilun cindaki in yar buu kula joogayaa in yar buu adduunka joogayaa yuushaku an yufaariqaka ilayna waxaa laga yaabaa inuu noo yimaadee ha naga dhibin odayga nebigu wuxuu sheegay hees baad jeceshahay miyaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam xuuraciintu inay odayaashooda ay u heesayaa buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inna aswaaja ahli aljanna xuuraciintu buu nebigu yidhi layuganniina liaswaajihin odayaashooda u heesayaan biaxsani aswaatin samicaha axad codadka kii ugu macaanaa bay ugu heesayaan waa inoo sheegay xataa nebigu heestooda ay ku heesayaan maxay odhanayaan naxnu alkhaalidaatu falaa yamutna naxnu alraadiyaatu falaa yaskhatna naxnu almuqiimaatu falaa yadcanna naxnu alnaacimaatu falaa yab'asna naxnu alxuuru alxisaan aswaaju qowmin kiraam tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lah codkayga ma ah ka xuuraciinta ayaa lagugu heesay ayuha almu'min waxay leeyihiin annaku waxaan nahay xuuraciin baan nahay waan ku waaraynaa jannada kama baxaynaan raali baan ku nahay ma cadhoonayno jannadaan ku sugnaanaynaa ma gaboobayno ma xumaanayno xuuracayn wanaagsan baan nahay qowm wanaagsan baan u sugannahay alla wanaagsanaa ninkana le annakuna aan leenahay caaisha waxay tidhi radia allahu canha ina alxuura alciin idaa qulna hadihi almaqaala xuuraciintu markay ku heesto heesahaas haweenkii dumarkii mu'minaadka ahaa ee jannada galay ayaa iyakuna heesi maxay odhanayaan naxnu almuslimaatu wamaa sallaytunna wanaxnu alsaa'imaatu wamaa sumtunna wanaxnu almutawadi'aatu wamaa tawada'tunna wanaxnu almutasaddiqaatu wamaa tasaddaqtunna way ka qaalib noqonayaan dumarkii mu'minaadka ahaa ee adduunka mu'minaadka ku ahaa ee jannada la geliyey ayaa ka cod macaanaa oo ka qaalib noqon buu ayay tihi caaisha radia allahu canhu maxay leeyihin annaku muslimaad baan nahay inniku salaad maynu soo tukan waan soomanayn annaku inniku maynu soo soomin waan weysaysanayna inniku maynu soo weysaysan waan sadaqaysan jirnay inniku maynu soo sadaqaysan jannada geedaa jira abaar ma ah meesha janno iyo wanaag baa jira inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba ilaahay waxa uu leeyahay dadka muttaqiinta waxaa u sugan liibaan xadaa'iq beeraa u sugan qurux badan oo dhex marayaan iyo wa acnaaban cinab badan baa u sugan jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar jannooyinka iyo beeraha iyo wanaagga hoostooda webiyaal baa socda oo kulluhaa daa'imun wadilluhaa cuntada ay ka cunayaan mudhaha ay cunayaan waa daa'im kama dhammaanayo harhkooguna waa daa'im nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna fi ljanna jannada waxaa ku sugan la shajara yasiiru wuxuu socdaa ninka faraska fuushan ee ordaya sida xoogga badan u ordaya hadhkeega 100 caam 100 sano ayuu soconayaa laa yaqtacuhaa mana dhammaynayo waa geedka intuu leegyahay waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa fi ljanna shajara geed ma jiro jannada ilaa wasaaquha haddii uu jiro jiradda geedkaasi waa dahab jiriddiisu waa dahab buu nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu tirmidi waxaa kaluu nebigu yidhi ina arajula ninku hadduu mudho uu ka goosto jannada geedka uu ka goosto caadat makaanaha ukhra mid kalaa meeshii ka soo baxda geedku waa iga dheer yahay sallaan ii keena ma jirto wadullilat qutuufuhaa tadliila geedkaad doonaysay baa kuu imanaya aayar umaad ka goosanaysa waxaa kaluu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada inuu jiro geed
mudha waaweyn mudhihiisu uu zabarjar iyo yaaqood iyo lo'lo u yahay geedkaasi dabayl buu ilaahay subxaanahu wa tacaala udgoon buu jannada ku soo saaraya markaasay sacabka garaacaysa waa geedkii waxa sacabka garaacaya waxaa la maqlayaa codkii ugu macaanaa musiigkii ugu macaanaa oo dhan kuwii heesaha jeclaa taasaa sugaysa wanaaggaasaa sugaya ilaahay dartii uga tegay heesaha iyo musiigga iyo waxaasoo dhan wanaaggaasaa u haray marka ay doonaan ahlu jannuhu inay maqlaan cod wanaagsan dabeeshaa umuu ilaahay u soo saarayaa geedkaa umaa u garaacaya musiig noocyaashii ugu dambeeyey cikrima waxa uu sheegaya can ibni cabbaas aayadda qur'aanka addillu lmamduud ayuu sharxayey waxa uu yidhi waa geed jannada ku sugan jiridiisu loo socdo ninka faraska fuushani uu u socdo hadhkiisa 100 sano dhinac walba 100 sano uga socon karaa dadka elu jannaha geedka isku hoos yimaada way ku sheekaystaan hadhka qaarkood baa waxay doonaan waxay xasuustaan heesihii adduunka ka jirayay xasuustaan ilaahay dabayl buu ku soo saaraa geedahaasaa dhaqaaqa markaasee heesihii adduunka ay doonayeen oo dhan baa u soo baxa cajiib ilaahay baa u diyaariyey waa meel loogu talagalay inay ku reexaystaan heestan adduunka ee ma aha tacbaanka ah talow cuntadoodu waa sidee cunto mee lagu hayaa meesha haa cuntaa lagu hayaa mudha wax alla waxay doonayaan khudrad wax alla waxay doonayaan hilibkayd rabaan oo dhan ayaa la siinaya ilaahay waxa uu leeyahay walahum fiiha min kulli thamaraat wamaqfiratun min rabbihim waxaa u sugan buu alla leeyahay min kulli thamaraat mudho alla mudho oo dhan kay doonaan oo dhan baa u sugan wafaakihatin mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun hilib shimbir oo dhan hilibka shimbirta weli man cunnay noocyaasha ugu fiican oo dhan ayaa u sugan buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala digaag haddaad cuni jirto xoolaha haddaad cuni jirto alla waxaad doonaysid oo dhan baad jannada aad ka helaysaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka in la siinayo quwad dhararkiisa waan tilmaamnay ballarhkiisuna aad buu u ballaadhan yahay quwad baa la siiyey 100 nin intay cuni karaan ayuu cunayaa wuu cabbayaa intaa in laeg buu dumarkiisa u galmoonayaa shahwad intaa in leeg buu hayaa waxa uu yidhi hadaad odhan lahayd oo suuligay qaadi nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ya'kulu ahlu اljanna ahlu jannuhu way cunayaan wayashrabuun way cabbayaan khaakhata ma tufayaan ma saxaroonayaan kaadi ma qabanayso cuntadoodu waxay noqonaysaa daaca yar oo miskiya udgoon bay noqonaysaa ama dhidid yar oo aada udgoon bay noqonaysaa cajiib jannada maxaa ka wanaagsan waa suxuun baa la dhex wadaa suxuun ayaa la dhex wadaa yutaafu calayhim bisixaafin min dahab suxuun dahab ayaa la dhex wadaa wa akwaab iyo koobab waxau sheegay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam in qofka loo keenayo ب70 sixin baa loo keenayaa oo dahaba sixinkii walba waxaa ku jira sixinka kale waxaan ku jirin oo khudrad iyo cunti iyo wax walba una weligii arag nebigu wuxuu yidhi isaga oo qofku meelaha iska fadhiyo oo iska nimcaysan oo iska ayaa wuxuu arkayaa shimbir hawada maraysa jannada shimbirtaasuu doonaya inuu cuno shimbirtii baa u soo dhacays iyada oo dubanba waaba la soolay iyada oo la dubay ayaa u imanaysa innaka latandur buu nebigu yidhi waxaad arki adigu ila tayr shimbirka fi ljanna fatashtahiih waa dooni fayakhiru bayna yadayk hortaadu kusoo dhici mashwiyan isaga oo la dubay ayuu hortaada kusoo dhici qaban waa janno ilaahay waxa uu yidhi meeshaa waxay ku leeyihiin dadka mu'miniinta wafaakihatin kaiira mudho badan khayr badan laa maqtuucatin walaa mamnuuca laga goyni maayo mamnuucna ma jiro kana ha u dhowaan ma jiro cun cab wax walba adigaa leh kana mamnuuca ha u dhowaan ma jiro
kanaad sonkor baad leedahay waxyaalaha iska ilaalin milix baad leedahay maxayga iska ilaalin ma jiro jannada kooraankii baa la iga gooyey ma jiro biyihii baa la iga laa maqtuucatin walaa mamnuuca ma jiro dhulku waa madow ma jiro yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin mudhuhu u yeedhaya mudhaha u imanaya isagoo aamina ayuu u yeedhaya kaalay wanaaggaasaa u sugan webiyaal baa jannada jira mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maa'in gayri aasin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ساسو إله إليه جنة وحا كسوغا وبيال وبعاناء وندنانانين كاحمانين وبإذن الصعودة دخسي مجير ماشي هاو مالا دخسي ملب كدر فاليستائية مجير عنيبا حماضي مجير وبي عاناء وبي خمرية وبي بياء وبي ملبا وحاصل نبو إلها ودياري وماء مسكوب بي الله شبيا ولا لا نحمريا خمر لصينيا الدنك خمرض وحاران لأن الله ننكي إسك إلاليي خمرض أدونك إلهي خمرض آخر سينيا يطاف عليهم بكأس من معين وحال لدح وريغي يا خمر وناكس بيضاء عب لذة للشاربين كو عبية آد بيقوم معان تهيبو إلهي سبحانه وتعالى لقو مسخرامي مقرمونا لا فيها غول كولكم مجربوا إلهي ليه قال وحل إلى هذه كمجر وحلو السخرام كمجر ولا هم عنها ينزفون كمنا متجيان كأدون كواتكم متج مدحنون باكو قبا واتكو سخرامي كاسي مجرو كذي بدن إيه مجرت آيات كران إلهي محو كلها لا يصدعون عنها ولا ينزفون كما وريريان كمنا متجيان وسقاهم ربهم شرابا طهورا إلهي بورابي الشراب وناكسن أو طاهرة أو في عن إلهي بوراس ولا لا وريغا يا كوب وحا كوب كاسي كجرا انت نفتيس دونيسا كجرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا وحلو قدري ولو سلقوي انت ونفتيسو اي دونيسو ايا كجرا كوبك انت اقرب انت ايه بجرتو إلهي وحا أولا يسقون من رحيق مختوم وحالا ورابنا يا خمرا نوع أقوى ناكسن ويحرنتهي لقى مهر فريو ويحرنت ختامه مسك مركو عبو انت أقدم بيسوا مسك أدقوم باكو صوبحيا إلهي وحوله وفي ذلك فليتنافس المتنافس كون برتما يتاهو برتمان ولبا ومزاجه من تصنيم waxaa lagu laaqay tasniim wabiga la yiraahdo waxa ka caba aynan yashrabu biha almuqarrabun dadka muqarrabiinta ayaa ka caba taas lagu laaqaya oo la leeyahay wabiga wanaagsan inna al-abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura kafur ayaa lagu laaqaya kafurna waa wabi kale isna udgoon sharaabkii baa la isku laaqaya noocyal ugu wanaagsan baa loo sameeynaya آيات كان مزاجها زنجبيلا قرب الزنجبيل لو يقول لاقيا كافور تصنيم وأنه عياشي سبحان الله نوع عياشي أدقونا أقفعنا أوطن أي الله يقول لاقيا مؤمنك عبال ليه ماشا وشرشريان ويسعدان ويسبوقانيان تاندوين باشرة تاندوين أياشرة نبي قوحوري عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مؤمن كوحو كل يهي جنة
taandho gibigeegu uu ka samaysan yahay lo'lo dhexdeedu saa u furan tuuluhaa dherarkeegu 60 maylan waa 60 mayl buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale waxaa ahayd ballarhkeegu waa 60 dhinac walba waxaa ugu sugan reerba ugu sugan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam fii kulli zaawiya angal walba dhinac walba wuxuu ku leeyahay reer xaas baa u jooga ismana arkayaan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam dharkooga ma egna eelujannuhu ilaahay dhar wanaagsan buu u diyaariyey xariir nooca ugu dambaysaa loo diyaariyey jannaatu cadnin yadkhuluunaha way gelayaan jannaatu cadnin la yidhaahdo yuxallawna fiiha waxaa lagu qurxinayaa oo loo xidhayaa min asaawira min dahab shuuliyaal dahabaa loo xidhaya xataa raggii shaqa ma jirta meesha way wala xaragoonayaan shuuliyaal dahabaa loo xidhi silsilad baa loo xidhi taaj buu xidhan yahay waa boqor min asaawira min dahabin wa lu'lu wa libaasuhum fiiha xariir dharkoogu waa xariir buu ilaahay yidhi weliba ilaahay wuu sii kala sheegay xariirta noocyaasha ugu fiican wayalbasuuna waxay xidhanayaan hiyaaban dhar khudra akhtara min sundusin wa istabra xariirta nooca ugu adag iyo nooca ugu jilicsan oo dhan muttaki'iina fiiha cala alaraa'ik sariiray ku tiirtiirsanayaan nicma athawaabu waxasunat murtafaqa dharkoogu ma gaboobayaan dharka waa iga wasakhoobeen ma jirto iga maydha maradan jeclaa waa iga dhammaatay ma jiro nebigu wuxuu yidhi man yadkhulu ljanna ka jannada gala yancam walaa yab'as jannada uu ku nimcaysan ku hoogi maayo laa tablaa hiyaabuh dharkiisu ma gaboobayaan ma baaliyoobayaan walaa yafnaa shabaabuh shabaabnimadiisuna ma gaboobayso taajkaasaa loo xidhaya taaju lwaqaar ayuu nebigu ku tilmaamay wayudacu calaa ra'sihi taaju lwiqaar khayru min addunya wamaa fiiha taajkaa loo xidhayo ayaa adduunka iyo waxa ku sugan oo dhan ka khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nebigu ku tilmaamay taajka loo xidhaya mu'minka ka ugu yar latudii'u maa bayna almashriqi waalmaqrib cadcadka soo baxa cadcadku dhaca inta u dhaxaysoo dhan ayuu iftiiminayaa taajkaas waa boqor waidaa ra'ayta uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira markaad aragtid buu ilaahay ku leeyahay waxaad aragtay nimcad iyo boqortooyaad aragtay tii ugu weyneed uguna fiicnayd shuuli baa loo xidhay dahab baa loo xidhay wuu nimcaysan yahay wuu barakaysan yahay khayrkaasuu ku jira nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam shuuliga uu xidhanayo ninka mu'minkii hadduu jannada intuu kala soo baxo adduunka uu ku soo iftiimiyo latamasa daw'a ashams cadceedda iftiinkeega wuu bakhtiinba cadceedda iftiinkeegu bakhtiin buu yidhi nebigu calayhi salatu wasallam waa shuuliga uu xidhan yahay mu'minku jannada firaashka ay ku seexdaan ma doonays seexasha ma jirto meeshaas seexasho la gam'ayo ma jirto meesha waa lagu nimcaysanaya lama seexasho waqti baa kaa tegaya xaggaasi seexasha ma jirto waa lagu nimcaysanayaa wanaag baa lagu jiraa wa furushin marfuuca buu ilaahay yidhi waxay ku leeyihiin jannada firaashyaal la kor yeelay waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay ina irtifaacaha firaashkaas dherarkiisu lakamaa bayna alsamaa'i waalard samadii iyo dhulku intay isku jiraan ay isku jiraan cajiib samadii iyo dhulku waa firaashka mu'minka uu dul fadhiisanayo laakiin markuu rabo inuu dul fadhiisto way soo dhaadhacaysa markuu dul fadhiista wuxuu arkayaa wax alla nimcaddii ilaahay u diyaariyey oo dhan elale waxaasoo dhan adigaa beeraha iyo guryaha iyo nimcadda iyo dumarka iyo waxaasoo dhan adigaa leh wa furushin marfuuca markuu nebigu uu tilmaamayay waxa uu yidhi maa bayna alfiraashayn labada firaash waxaa u dhaxeeya
kamaa bayna الsamaa'i wاlard samada iyo dhulka inta udhaxaysa ayaa udhaxeeya. maxaad u malayn nimcadda waa firaashkiisa waxa intaas isku jiro. firaashka wuxuu ka cabaysan yahay lagu cabeeyey ma taqaanaa. ilaahay waxa uu yidhi muttaki'iina waxay ku tiirsan yihiin calaa furushin furaashyaal maaha furaashkan adduunka ee tacbaanka ama ah firaashyaal bay ku tiirsan yihiin bataa'inuhaa min istabraq waxaa lagu cabeeyey waa xariir gudaha waxaa ku jira waa xariir buu ilaahay yidhi. maxaad u malayn duraaxadda lagu dulgoglay daahirkeega maxaad u malayn quruxda lama tilmaami karayo. ilaahay waxa uu leeyahay wanamaariqu masfuufa makhadadaa la tartiibiyey wazaraabiyu mabhuutha gogol baa la daadiyey lagu firdhiyey jannada. ma aha gogol waa wasakhowday iga masaxa iga ma jiro kabaha la marin ma jiro waxaasoo dhan ma jiro gogol. allah meesha maxaa ka fiican ninka mu'minka garfeedha uu ku feedhanaya ma doonaysaa inaad ogaatid. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa amshaatuhum dahab garfeedhooda waa dahab buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. girgiraha uu shidanayo mu'minku unsi iyo khayr waxbuu shidanaya udgoon wuxuu ku tilmaamay inuu yahay macdanta nooca ugu fiican. cajiib weelkooga oo dhan waa dahab yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin wa akwaabin kaanat khawaariira. waa loo shaqaynayaa waa boqor isagu khadam ayaa u shaqaynaya shaqaale ayuu hayaa ciyaar yar yar oo qurux badan oo jannada ilaahay uu ku abuuray oon daalayn oon gaboobayn oon kaa baxsanayn ayaa jannada ku sugan. qofkii walba intaas oo kun ayaa u shaqaynaya. wayatuufu calayhim ilahay wuxuu le waxaa ku wareegaya oo ku dawaafaya wildaanun mukhalladuun wiilal yar yar oo lagu ku waaraya jannada. idaa ra'aytahum haddaad aragtid xasibtahum lu'lu'an manhuura waxaad u malayn lu'lu jannada lagu firdhiyaad u malayn quruxda iyo dhalaalka iyo se u adeegayaan. yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciin koob iyo suxuun dahabiya ayay u wadaan qofka. jannadu ma aha meel aan laysku imanayn waa meel laysku iman waa la isbooqan. suuq baa jira jannada nebigu waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inna fi ljannati la suuqan jannada waxaa ku sugan suuq ya'tuunahaa kulla jumco walbay imanayaan dadka mu'miniinta dadka eli jannuhu jimco walba suuqaasay imanayaan. dabayl baa xaggaa midigta ka iman xaggaa iyo waqooyiga dabayl baa ka iman ma aha dabayshan adduunka sigada ee qarya dabayl udgoon ayaa ku iman wejiga ayaa ka taaban iyo dharkooga fayasdaaduuna xusnan wa jamaala qurux iyo wanaag baa u beeri buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. way kala tegayaan mid walba reerkiisiba ku noqon iyo xooriciinti fayaquulu lahum ahluhum dadkii ehelkoogii baa ku odhanaya wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan wallaahi qurux baa inii soo biirtay xaggeed san ugu soo qurux badnaatay. intuu isagu uu ka maqnaa reerkiisana reerkii waa sii qurux badnaaday. markaasaa wuxuu odhanayaa wa antum wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan ininkuna qurux baa inii sii biirtay maxaa dhacay. cajiib eelu jannuhu way isbooqanayaan way sheekaysanayaan meesha cidhiidhi ma ah waa la isbooqaan waa la is arki. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إلهي wuxuu leeyahay barbarka kale qaabileen way iska hor imanayaan way sheekaysanayaan dhabarka iskuma jeedinayaan markuu rabo inuu hoydo aayar buu duulaya isagoo walaalihii eegaya inuu aayar duulaya. وأقبل بعضهم على بعض barbarka kale qaabileen buu ilaahay leeyahay الجنة way sheekaysanayaan. قالوا إنا كنا mid baa sheekaynaya إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين dunka markaan joogna waan cabsanayni aakhiraan ka cabsanayni famanna allahu calayna wawaqaana cadaaba sama ma garanaysa ilaahay suu naarta nooga badbaadiyey markaan adduunka aan joognay aan salaada tukanaynay aan soomaynay aan dadaalaynay ma xasuusan tahay innaa kunnaa min qablu nadcuuh ilaahay baan baryi jirnay cadaabkiisaan ka cabsan jirnay innahu huwa albaru raxiim ilaah noo naxariista
ونو دنبي دافي جنون نقلي والشيخي سنيان مد بقى الشيخين وحولي قال قائل منهم مد يكا كمدا وحولي إني كان لي قرين صاحبا لها مد بقى صاحب أهين وحيقو أرنشري إنك لمن المصدقين ما مركان لمنو إن بابا أنو اللي فهنوا أي عيد قلان إن خلاص مو واحد رميسانتها إن الله صار آخرة أي ترتو ساسي أرنشري وننكي حقو كدن بي مقارنة ما إراعيسان ننكي هنرادين oo aan soo baadhna xaqu jooge markaasay dhaqaaqayaan ilaahay wuxuu leeyahay fattala'a faraahu fi sawa'il jahim inna mariyu leeyahay markaasay naartiba eegayaan oo ka dhex raadinayaan meel yar bay si tirisaanga furanayaan dhag markaasay ka dhex arkay markaasay wakaaki naarta jahannama isaga oo bartanka ugu jira ayuu arkaya markaasuu leeyahay tallahi in kitta la turdi wallahi waxaad u dhawaatay inaad ihalaagtid maalinkaad khamrada ii qaadays allah kaala khamro kaalaan zinaysanay maalinkaad ilahay maalinkaad aakhira aad beeninaysa wallahi haddaanan kaa hadhin xaggaasaad igu soo ridi lahayd walowlaa nicmatu rabbii lakuntum min almuxdariin nimcadda rabbiga haddayna igu dhicin oynay asiibin oynay isoo gaadhin xaggaasaan maanta iman lahaa cajiib saas u sheekaysanayaan إخواني قف والبماشا وكن معيسيه أهل الجنة كأغير جنة وحو هلي وحو النبي وكت المامي واكا إيغيا بقرن ماذا إلهي سيي بقرتو يدا إلهي أوسيي 1000 سنة لبكن أو سنة إلا صعدة والنمعضة أيساو إيغيا وأركيان طرف إلى طرف قريها إنم عدى وكأوية يعني أدونك بقرك أدونك وقول لعكت بدن وقول نم عيسان انتو هايستو تبلاب كيد وحا أدونك كتيرا أوردن تبلاب كيد بو هايستا تبلاب كيد أيو هايستا كأوية رويان إن أعدو سوى الشقيسة محاد لينكي أجر كبضنا سوى الشقيسة محاد لين إخواني إلو جنه يكو أو جنة كتيرا أنم عيسان أيا وحا ويدي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بالله الله وحكو أرنا يا إلو جنها تريدون شيئا أزيدكم مدونيسان وحان نبيريو فيقولون وحي أرنا يا ألم تبيض وجوهنا إله صديق وجهي يعدي وجوه يومئذ ناظرة إله وجهي وادي قرحية ألم تدخلنا الجنة إله جنة ميان نقلل وتنجينا من النار نار ما نقبت بادين محن نهري جنة نقلسي نار با نقبت بادسي وتيا شيدي با عديسي إلهي حجابك اسك قاضي يا سبحانه وتعالى إلهي بي أركيان ربي سبحانه وتعالى محاك وين الله إلهي سبحانه وتعالى إلهي سموين كان أبوري قل كان أبوري إلهي بأركيان ربي سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلهي با سبحانه وتعالى أهل الجنة الله الله يا أهل الجنة مركز إليه لبيك ربنا وسعديك إله وانكو أجيبني إلهي وحاو كل هل رضيتم رالي من نقتين وحي أرنيان وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك إلهم حرى لأنه قويني وحان نسيسي وحد خلقي ياغا النسين أسين إلهي وحو أرنيا أنا أعطيكم أفضل من ذلك وحان نسينا يا وحا وحك فضل بضن قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك محاكوناك سنشنظر أو نسين كرتا وحكوناك سن أكفضل بضن ليوجي رابع إلهي وحو أرنا يا أحل عليكم رضواني رالي أهانتي دمان إني حلالين يا خلاص لا أسخط عليكم أبدا دب إني وعروني ماي عرمي تفتو والله دواقع يا وحال ليها يا أهل الجنة ويا أهل النار خلود لا موت كل خالد فيما هو فيه مدول بماشي ساسكواريا لماشي ما جرتو لقى ما ضحيو
meeshaasaa ku waaraysaan ku jiraysaan weligii waxaa la leeyahay yaa ahlu janna waa loo dhawaaqayaa inna lakum an tasxuu falaa tasqamuu abada meeshaa waad ku caafimaadaysaan caafimaad qab baad ku jiraysaan ma xanuunsanaysaan duray baa igu dhacay dhaxan baa igu ma jirto caafimaad qab baad ku sugnaanaysaan wa inna lakum an taxyuu falaa tamuutuu abada waad ku noolaanaysaan ma dhimanaysaan wa inna lakum an tashubbuu falaa tahrumuu abada shabaab umaad ahaanaysaan gabownimo inima imanayso wa inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada nimcad baad ku sugnaanaysaan iyo wanaag dhibaata inaguma dhacayso ikhwaani jannadaasi waxay u baahan tahay in loo diyaar garoobo in la shaqaysto ilaahay waxa uu leeyahay dadow tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya jannadaa waxaanu dhaxal siinaynaa jannadaa waxaan u diyaarinay jannadaa waxaan gelinaynaa addoommadayada man kaana taqiya ninka alla ka cabsada kaasaan gelinaynaa xaaraanta ka fogaada xalaasha la yimid tilka aljannatu alatii uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun saasaa lagu odhanaya jannadan waxaan ilii dhexli siiyey waa shaqadaad usoo shaqaysateen waad u soo dadaasheen ayuha alaxibatu alkiraam han u shaqaysanno meeshaas adduunkani waa maalimo waa laga tegi awowgaa aawe wuu dhintay awowgaagii ka sii horeeyey aawe wuu dhintay adiguna waddadaad ku jirtaa waa la tegayaa aakhiraa loo socdaa yaa janna yaa naar labada mid baa jira war jannadaa ha loo ordo ha loo shaqaysto wajazaakum allahu khayran وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد